Adiga ama saaxiibada ama dadka dhammaan badankooda waxay u dalxiis tageen isla markaana u damaasho tageen meelo kala duwan iyagoo xusaya isla markaana ay ka muuqato farxadda maalinta ciidda iyadoo maalinkii labaad ee ciidu ay tahay dad badan weli ay u dabaaldegayaan munaasabadda ciidda laakiinse dadka badi shalay waxay booqanayeen meelo kala duwan. Gabadhan dhalinyarada ee ku muuqanaysa nasiibkaas ma aysan yeelan oo ay ku booqato meelaha qaar. Dadka haddii ay farxayeen oo ay dhoola cadeynayeen iyada waa ilmeynaysay. Waxay booqatay isla markaana ay dul tagtay qabriga ay ku aasantahay hooyadeed iyadoo weli dareemaysa xanuunka geerida hooyo iyo sidoo kale inay tabayso qiimaha hooyo oo booskaas weli uu ka bannaan yahay xaggeeda. Waxaa gabadhan iyadoo qabriga hooyadeed dul taagan ay dareemaysa xaalad xanuun badan oo la xiriirta in weli dunida cidlo ay ku dareemayso inkastoo qadarta Rabbi ay ku qanacsan tahay iyo sidoo kale geerida ku timid hooyadeed ay ahayd wax qoran oo waqtigeeda aan la dhaafi karin. Balse gabadhan waxay tilmaamaysaa inay dul tagtay qabriga hooyadeed. Waxay sheegtay in dadka qaar ay u dalxiis tagayeen meelo kala duwan, xitaa saaxiibadeeda iyo dadkaan aqaano waxay tagayeen meelo gooniya si ay u xusaan ama ay ugu dabaaldegaan munaasabadda ciidda. Laakiinse aniga waxay ii ahayd maalin murugo badan maxaa yeelay waxaan booqday qabriga hooyaday. Waxaan dareemayay murugo badan oo la xiriirta geerida hooyo. Waxaan ku soo aqriyay qabriga hooyo quraan fara badan, waxaana loogu baryay in jannada firdowso uu ka waraabiyo hooyaday. Xaqiiqdii hooyaday waxay ahayd qof qiimo badan inkastoo dunidan waqti ka hor laga oofsaday, laakiinse meeshii ugu fiicneed ee aan booqday shalay waxay ii ahayd qabriga hooyo ay ku aasan tahay. Inkastoo hooyo muddo badan ay aasan tahay, laakiinse waxaan intaas dareemayay murugo badan iyo cidlo. Waa dareemi kartaa qof waalidkiisa qaasatan hooyo aan dunidan ku haysan xaaladaha uu wajihi karo. Inkastoo aan sabrayo isla markaana Ilaahan ugu baryayo hooyaday in jannada firdowso uu ka waraabiyo, laakiinse meeshii ugu fiicneed ee shalay aan booqday waqtigeyga ugu badan ku soo qaatay waxa uu ahaa qabriga hooyaday, ayay gabadhan tiri iyadoo ilmeynaysa. Waxaa dadkay ka codsatay in hooyadeed ay ugu soo duceeyaan si Ilaahay jannada firdowso ugu waraabiyo. Waalidku waxay noogu jiraan boos muhiim ah kaba sii daran hooyo qofkaan haysan oo dareemi kara murugo iyo sidoo kale xanuun badan. Allow naxariista janno sii gabadhan hooyadeed geeriyootay, iyadana qalbiga u qaboojiye. Kaliya xanuunkan waxaa dareemi kara qofka hooyo dunidan aan ku haysan isla markaana cilada dunidan wehel u noqday. Ku xirnow mar waliba Sharmaarka Media.